بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك Soomaaliya مدن محمد عبد الله فرماجو iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goordhow ka ambabaxaya garoonka aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada Makka al-Mukarrama halkaas oo uu ka bilaaban doono shirka ururka islaamka oo dhammaan dalalka ururka ku bahobay isugu imaanayaan waxa madaxweynaha halka ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi uu hogaaminayo kuwaas oo gogol xaar u ahaa wafdiga madaxweynaha waxa kale oo jira in maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 29 bisha Maajo 2019 in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu u magacaabay mudane Cabdixakiim Xasan Ashkir inuu noqdo danjiraha Soomaaliya ee boqortooyada Sacuudi Arabiya sidoo kale waxa loo yeeray oo dalka laga doonayaa inay muddo usbuuca ku soo galaan danjirayaasha dawladda federaalka Soomaaliya u matala dalalka Suudaan iyo Jamhuuriyadda Carabeed ee Masar